السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين واني دي السلامي سلام كدب إن برنامج كيغن مانتا وحو داري هاي رالي قلين بوحدة وان كبحينينو إن برنامج شي خالدان نوغا بحي برنامج كاسي إن سيدا خالدان وبحي إن وحانو قادانينا ولي بسي قارانو قادانيا mas-uuliyadiisa bulshada Soomaaliyeedna waan ka raali gelinaynaa in ma doonayo oo maanta ma taagna inaan iraahdo barnaamijka qayb kamid ah qaldaneed iyo qayb kamid ah sax ahayd maya Soomaalidu waxay ku maamaadaa hal malay oo qurmay ayaa badda wada qurmiya ama hal kalluun oo uraya ayaa badda wada uriya hadiiba ay ku jiraan barnaamijka sida khaldan u baxay erayo iyo kelimado aan anshaxa saxaafadda iyo asluubta diinta suuban diinteena islaamka aan qaabilsanayn una qalmin barnaamijka dhan wuxuu noqonayaa barnaamij qurmay marka cudurdaar uma yeelayo oo ma dhahayo cudurdaar baan u sameynayaa barnaamijku si khaldan buu ku baxay isagoonaan tafatirin oo aanan ka fikirin oo aanan astaantii shuruudihii lagu yaqaanay saxaafadda aanan marsiin ayuu si khaldan hawada u soo galay taas mas-uuliyaddeeda waan qaadanaynaa waana ka raaligelinaynaa bulshada Soomaaliyeed si guud ahaaneed in markii barnaamijku hawada galay dad fara badan oo asxaabteeda oo na yaqaano gun ilaa geed ilaa baar si wanaagsan noo yaqaana ayaa nala soo hadloo yidhi war wax khalad baa dhacay arrintaasi waa khalad ka dhacay in raaligelin ka bixiya dadka qaarkood oo asxaabtayada oo na jecel waxay noo soo jeediyeen inaan barnaamijka dhahno baraanki buu ahaa laakiin anigu diyaar uma ihi umana ahaan doono inaan been khalad ku saxo khalad markuu dhaco waa in raaligelinta iyo mas-uuliyadiisa la qaato laakiin in been lagu saxo khaladkaasi waa khalad kale barnaamijku baraanki ma ahayn barnaamijkan si toos ah u duubnay buu ahaa laakiin sidaan ku soo gelinay baa khaldanayd oo si khaldan baan ku soo gelinay taasna bulshada waxaan la wadaagayaa runta oo caado ima aha inaan been sheego oon maanta dhaho baraanki buu ahaa iyo waan ku ciyaaraynay iyo dadka mas-uuliyiinta dadkii arrintu ay gubtay inaan ku dhaho marka taasna ka raali ahaada baraanki ma ahayn barnaamijkan si toos ah u duubnay ahayd laakiin markii dambe hawada la soo gelinayay ayaa si khaldan loo soo geliyay isagoon la soo asluubeynin in waxaan sidoo kale raaligelin buuxa siinayaa waalidka ehelka qaraabada xaaska caruurta mas-uulkii aan warbixintan ama barnaamijkan ka duubnay hadaladii ka yeeray ay qalbi jab iyo muraara dilaac ku noqdeen inaanu faafinay ama aanu soo daynay hadaladaasi idin qalbi jabiyeyna waan idinka raaligelinaynaa waalid ahaan waalidkiisa walaalihii ehelkii xaaskiisa iyo caruurtiisa waa mas-uulkii aan ka duubnay warbixintaas isna waxaan jecelahay inuu dhawaan arrintaasi raaligelin ka bixin doono marka si guud ahaaneed waan idinka raaligelinaynaa khaladkii dhacay cudurdaarna uma sameynayno taasi waa si guud maxaan ka baranay barnaamijkaas annagu waxaanu ka baranay oon ogaanay xilligan in lagu jiro xilli in xumaatada la faafiyo ay fududahay in xumaatada la faafiyo ay fududahay ayaanu ka baranay waayo barnaamijkan hadduu ahaan lahaa barnaamij wanaagsan oo arrimaha bulshada ah cidna ma wadaagi lahayn cidna ma sii sheergarayn lahayn cidna cid kale umaysan sii diri lahayn barnaamijkii khaladka ku soo baxay ee naga baxay hadduu ku sii jiri lahaa saacado kale waxaa hubaala 1 milyan oo qof baa daawan lahayd marka taasi waxayna bartay in aadamuhu ama xilli la joogo xumaanta aad loo faafinayo oo bulshada haddii shay xun soo gaaro ay sii baahinayaan sii ballaarinayaan ilaahay qulubteena iyo qalbigeena nadiifa ka dhigo xumaanta kuwa ka fogaadana Allah naga dhigo taasina waxayna bartay in xilliga barnaamijyada wanaagsan ay dadku jecelayn laakiin barnaamijyada khariban ay dadku jecel yihiin anagana nagama ahayn barnaamijkaasi khariban inaan sii dayno waan idinka raaligelinaynaa in aniga ahaan waa la isoo caayay xubaato maarko intii soo cayday intii waxaan ahayn igu sheegtay xaruntana waa la soo caayay waan dareemi karaa qofku markuu wixii uu arkay
uu arko isagoon aqoon ku lahayn waxaad tahay waxaad guddaan ku garanaynin markiiba wuxuu ka cabirayaa wixii xumaa uu arkay caradaa darteed baa ciil iyo cayna ka keeni karta waan idiin garaabaynaa intiina soo caysay ee xumaatada nagu soo tilmaamtay cafis iyo musaamax ayay naga yihiin waayo iyagoon aqoon noon lahayn bay nagu degdegeen anigu muddo ku dhow 20 sano baan warbaahinta ku jiraa weligayna barnaamij ay dadku dhibsadeen ama karaahsadeen ma soo saarin waa barnaamijkii ugu horeeyay oo aan arko inay dadku ka gubteen sida khaldan had waliba iga baxay samaanu baa lagu yaqaanaa oo dadka hadda dib u booqatid British for Facebook iyo Snapchat ko dad badan igu xiran yihiin waxaan wanaag ahayn ma faafiyo waxayna u egtahay maanta inaan noqday shimbirkii intuu marka dabka qaaday markuu kaliya dabka qaadayna ugu dambeyn buulkiisa ku gubay hal mar baan barnaamij khaldan sameeyay tan watii laga wada gubtay taasi waa qofka aan anigu ahay isku amaani maayo Facebook aan leeyahayna waxaan yiraahdaa waa daahir oo wax xumaana lagu soo gudbiyo siyaasad baan lagu soo gudbin arrimo kale lagu soo gudbiyo waa nadiif xaruntana waa la soo eedeeyay oo dad baa soo eedeeyay xaruntana waa rabaan in dadka u sheego in xaruntu ay xarin wanaagsan tahay inaanu hadiya habeen u soo taaganahay wanaaga iyo fidinta waxaan nahay xarunta kaliya ee xarumaha quraanka ama tartanka quraanka 14 maalmood u taagan oo aan shilna ku qaadan faafiya marka wanaageeda waa taas ayda aniga la soo caayay waxyaabo fara badan oo aan ahayn baa lagu tilmaamay wallahi kama xumaanin waayo khalad aan anigu galay darteed baa caradu igu soo dhacday laakiin waxaan ahayn meehi maxaan doonayaa inaan marka ku soo barnaamijkayga ku soo xiro laba qof baan doonayaa inaan u nasteexeeyo oo qof labaduba na soo nabitaanka ayadii waxaan ku yiri wallahi bay ka tahay thumma wallahi wax dhibaato uma qabo ayadu meel dolooshiga ma galayso carada ka keentay barnaamijka khaldan dartiisna waan u dul qaadanayaa oo wixii la iga sheegay oo dhan intii ayado dhan wallahi cafis iyo masaax baad iga tihiin xumaantaad igu tilmaanteena bari baan ka ahay Allah ila og bari baan ka ahay bari baan si guud ahaan uga nahay xumaantaad nagu tilmaanteen taasi waa mid labada qof aan raba inaan u nasteexeeyo waa qolo Facebook ku soo qortay maqaal yar oo kooban iyo wiil kamid ah wiilasha Soomaaliyeed ee reactionada sameeya markay barnaamijyada arkaan walaal waa nadabteen haddaan nacay lahaydin cilmaan qabilahayn nabkaad nadabteen ma raba inaan iga nasteexeeyo wiilkan ku bilaabaya aniga inabay walaal wad dhihi kartay warniyo wariye ma tihid aqoonta wariyanimada kugu yar jaahil baa tahay mikrofoonka sida loo sameeyo ma taqaanid wareysi sida loo qaado ma taqaanid waxaas oo dhan waad igu caayi kartaa shakhsiyan wax waad iga sheegi kartaysay oo aqoonteeda iyo cilmigayga haddaan u qalmin iyo haddii kale xumaato maarko waad sida bari'aadan kale u soo caytami karaysay laakiin walaal wadna soo nabtay nabaduna ma fiicna waayo waxaad igu sheegtay oo igu tilmaamtay waxaan bari ka ahay wuxuu alla ogyahay inaanan ku jirin wuxuu alla ogyahay inaanan ahayn baad igu tilmaamtay dambi baad iga gashay laakiin saasay tahay waan ku cafinayaa talana waan kugu darayaa walaal qofka intaadan eedaynin oo aadan nabin ka hor bal xogtiisa soo ogow oo xogaa uu yaraan soo warayso qofka wax uu gudo iyo wax uu galo hadaa taariikhdeeda dib u raaci lahayd inaan qofka aan ahay waxa ku soo bixi lahayd inaan noqday oo kala tusaale ahaan ba hadaan ku saxo shimbirkii dabka qaaday hal maalin buulkiisa gubay inaan hal mar khalad galay laakiin taariikhdeeda hore ay wanaagsanayd ayna wanaagsan tahay markaas taasi waxay ku sheegi lahayd ama ka caawin lahayd inaad walaal sida dadka kale soo canaanteen aad soo canaanatid oo tiraahid war nin weyn baad tahay marada ka dhacday isku xisho iyo waxyaaba qaar kood baad dhihi lahayd laakiin meeshii ugu xumayd baad gaarsiisay waad naftay waliba hadii nabtid ma xumeen nabku kala darane waxaad ugu nabtay meenan ilaahay ka magan galay inuusan dhigin ilaahay baan ka magan galay ilaahay baan uga ducaystaa inaanan qowmkaasi waxaad sheegaysid aanan ka mid noqonin maal warka waa nabad waad nabtay fariin baan ku soo qoray aan kugu sheegay qofkaan ahay inaan ku cafiyay haddana dadka waxaan u sheegayaa inaan ku cafiyay cabsi masaxbaad iga tahay walaal warbixintii meeshaada ku jirto inta daawatay wayba daawatay inta kale ku dambaabaysa walaal ka saar laana waxa weeye kelimad kasto tiri waa been iga sheegtay waa been adayna dambi kugu noqonaysaa
waxaan doonayaa markay walaal inaan arintaas ka digtoonaatid oo aad ka saartid qofkaan la hadlayna si ma doonayo magaciisa wuxuu yahay inaan sheego anaa si gaar ah ula xiriiray fariintana u diray muuna arki doonaa fariinta xarunta waxaa jiray qolo kale iyaduna xarunteenan xogmaal ka soo qoray warbixin Facebook ay ku soo qoreen ay ku tilmaameen iyaguna xarun xun oo waxyaabaha khaldan faafisa taana wala waan ka saxaya waana nabteen xogmaal waa meel bulshada Soomaaliyeed u siman tahay waa meel diinta iyo horumarkeeda iyo culimo diinku ay ku xiran yihiin waa meesha kaliya ee markay noqoto in diinta la faafiyo ama la doonayo in ardayda culumta diiniga baranaysa la dhiirigeliyo hariya habeen u taagan oo tusaale ahaan dhowr iyo 10 maalmood bil ku dhawaad baan u taagnaana hariya habeenna soo gudbino waxyaabaha wanaagsan khaladku uu dhici karaa laakiin markaas oo kale waa inaad intaad qofka la soo hadashaan canaanataan laakiin inaad ceeb iyo waxaysan ahayn iyo nabka aad ku sheegtaan waa laga wanaagsan yahay wanaadka marka waxaan rabaa inaan idin sheego barnaamijkii khaladka ahaa ee naga baxay si guud ahaaneed baan mas'uuliyadeeda u qaadanaynaa ma khaldama waa ilaahay bilaadanku waa daciif khalad waa ka dhaca anigana qofka aan ahay kulli waan ahay hal maalin isku bedeli maayo ciddii doonaysa wax badan inay ka ogaato Facebook-gayga iyo Snapchat-kayga waa dib aad u daalacan kartaan waxaan soo geliyo waa wax arrimaha bulshada u wanaagsan oo ilaahay ila og yahay walaalkay khaladka iga galana waxaan kula kaftamayaa haddii dib loo fiiriyo waxaan anigu Facebook-ga soo galiyay bulshada Soomaaliyeed la soo wadaago wanaag iyo qiimaha ay leeyihiin haddii adigana dib lagu raaco waxaad bulshada la soo wadaagtid xumaatada ku jirta Allah igu og waxa weeye kaafiye kala dheeribayno kala nahay saasay tahay ku faani maayo waxaan kugu nasteexaynayaa Allah ka cabso oo khalad waa dhaca aniga ba khalad iga dhacay waan raali gelin ma ka bixiyay dadka walaal ani waad inabtay Allah igu og waad inabtay markaan walahi thuma wallahi waad inabtay dad kale walaal hanabin hal midnaan kugula taliyo markaad qofka warbixin ka soo diyaarinaysid ugu horeyn bal asalkiisii wuxuu guday wuxuu galo soo ogo waan kugu nasteexaynaya waxaan ku soo gabagabeynayaa anagoo dhan wixii dhacay si buuxda ayaan mas'uuliyadeeda u qaadanaynaa khalad buu ahaa ma ahayn waxa khaldan in bulshada loo soo gudbiyo si khaldan buu noogu soo baxay waan khaldanay warku runtu waa lama huraan waana ka raali galinaynaa cashir baanu ka baranay walaalkii aan wareysanana insha Allah dhawaan isaguna raali galin buu ka bixin doonaa marka inta hadda sida khaldan wax u qaadatay oo ilaa hadda xarun meelahooda ugu jiro waxaan ka codsan lahayn inay iska saaraan intiina soo cayday oo khaladka dhacay nagu soo cayday oo waxaanan ahayn nagu sheegtayna walaalayaal waxaanan ahayn manihin idukuna cafis iyo musaamax baad naga tihiin anagana khaladkii aan galna waan qaranay hadal badan haan ma buuxsho waxaan leeyahay ma khaldama waa ilaahay subxaanahu wa tacaala bilaadanku qata waa khalad waa galaa khaladkii aan galay si guud ahaaneed baan raaligelin uga bixinaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaanu ku dadaalaynaa oonu insha Allah cashiran ka baranay in khaladka oo lagu degdego ay masiiba ka dhalato in xumaad oo lagu degdego oo markiiba ama si khaldan u baxda ay cara keenayso taasina marka cashir badan baan ka baranay awal xumaan ma naafidin laakiin wixii khaldan ay kale aanu indhahayaga iyo dhaayahayaga u qabtaan ballan waxa waaye inaanu ka hortagno oo nu joojino mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed intii muuqaalkaas barnaamijkaas si aanu soo baahinay ay dhibsaday ka carooday raali naga noqda insha Allah dib oo dhimeyso hadduu Rabbi raali ka noqdo mas'uulkii kalena insha Allah waxaan rajaynaynaa walaalkeen inuu yimaado isna raali gelin buuxda ka bixiyo ma khaldama waa ilaahay afwan khayr badan baan dhammaantiin walaal idin rajaynaya wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh